maalin wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markani wararkii warbixinada ugu xiiseeya xamaasada wadahadahan oo kale ah ka taawajirtan Israac Media waxaa kamid ah musharax Jabiya oo warar afka ku qaaday madaxweynaha Puntland kalan dhawaajiyay arrimo xasaasi ah gudoomiye Mursal oo bedelay guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya soona magacaabay guddi cusub yaa kamid ah dacwad ka dhan ah dowladda Soomaaliya oo loo gudbiyay Mareykanka iyo arrimo xasaasi ah oo la isku haysto tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay jiil badan oo raxweynaha gacanta u gelisay al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xog gaar ah ayaa sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay qaaday tilaabo oo ku weeqayso xiriirka kala dhaxeeya dowladda Mareykanka arintani ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka ka saartay shirkad laga leeyahay Mareykanka oo ka shaqeynaysay garoonka diyaaradaha Aadan Cadib kadib markii ay Villa Soomaaliya ku andacootay in aysan fulin heshiisyo hore oo la saxiixdeen shirkadani oo mashruucyo badan ka waday garoonka Aadan Cadib ayaa beddelkeeda waxaa la keenay shirkad laga leeyahay dalka Qatar dowladda Mareykanka ayaa soo faragelisay arintani iyada oo sheegtay in ay baaritaano ku sameyn doonto sababta ay ka dambeysay in laga saaro shirkadaasi dalka musharax Jabiya oo kamid ah musharaxiinta u taagan doorashada Puntland ayaa khudbad qiiro gelisay dadkii ka qayb galay xafladii lagu qabtay magaalada Garowe oo ku weerarayay madaxweynaha talada haya ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu sheegay inuu ka hor istaagay qorshe muhiim u ah shacabka Puntland mudadii uu xilka hayay Jabiya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Gaas uu xeebaha Puntland keenay kalluumaysato shisheeye taa beddelkeedana uu ka hor istaagay horumarka kalluumaysiga deegaanada Puntland wuxuu arrinkaasi u riyaaqay dhalinyaro ka qayb gashay xafladaasi musharax Jabiya oo kamid ah musharaxiinta u taagan doorashada Puntland ayaa khudbad qiiro gelisay dadkii ka qayb galay xafladii lagu qabtay magaalada Garowe oo ku weerarayay madaxweynaha talada haya ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu sheegay inuu ka hor istaagay qorshe muhiim u ah shacabka reer Puntland mudadii uu xilka hayay Jabiya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Gaas uu xeebaha Puntland keenay kalluumaysato shisheeye taa beddelkeedana uu ka hor istaagay horumarka kalluumaysiga deegaanada Puntland wuxuu arrinkaasi u riyaaqay dhalinyaro ka qayb gashay xafladaasi